بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داوديال كسو dhawaada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxa ka mid noqon doona muxuu ra'iisul wasaare Roble kala soo laabtay booqashadii uu ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta Artemis oo shacab fara badan ka soo afduubatay gobolka Shabeellada Dhexe Sacuudiga oo dalkiisa ka mamnuucay muwaadiniinta Soomaalida maxkamadda racfaanka Hargeysa oo xukun ku riday Cabdimaalig Muuse Caldoon sababtu maxay tahay wararkaasi warar kale oo xiiso badan iyo tacadiyada Soomaaliland ka jira ayaan daawadayaal warka janaalkeena idinku soo gudbin doonaa hadaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega share-ka iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena xogta dalka daawadayaal muxuu ra'iisul wasaare Roble kala soo laabtay booqashadii uu ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal 4 cisho qaatay oo ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaas uu kaga qayb galay tacsida madaxweynaha geeriyooday Imaaraadka Carabta Allah u naxariistay Sheikh Khalifa bin Zayed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble intuu joogay Imaaraadka waxa uu magaalada Abu Dhabi kula kulmay madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed oo uga tacsiyay geerida madaxweynihii hore ee Sheikh Khalifa iyadoo sidoo kale uu rajeynayay in uu eebo uu ku guuleeyo mas'uuliyadda uu u doortay iyo hogaaminta dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaare Roble ayaa Sheikh Mohammed bin Zayed gaarsiiyay dhambaal tacsiye salaan oo hambalyo ah uga siday madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud wuxuuna ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay u garab taagan tahay Soomaalida xilliyadii adkaa iyo sida ay mar walba ay kaga warqabto dhibaatooyinka kala duwan ee dadka Soomaalida ah heesta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ku amaanay dadaalada badan iyo juhdiga badan ee ku bixinaysay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in mar walba Imaaraadka iyo Soomaaliya cilaaqaadkooda uu jiri doono cid kastana oo isku dayday inay jarto ay ka hortagi doonaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa intuu Muqdisho ka bixin waxa uu hore u sii qaaday lacagtii hore laga xanibay dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo dowladda Imaaraadka Carabta lacagtaasi bedelkeeda kale ee uu soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu soo celiyay xiriirkii dowladda dalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya hore uga dhaxeeyay kadib markii gibi ahaanba ay jirtay xiriirkaasi dowladii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo cilaaqaad wanaagsan uu kala dhaxeeyay dowladda wadanka Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa uu ahaa xiriirkooda mid aad u xumaa iyadoo Farmaajo uu la saftay dowladda dalka Qatar balse dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si weyn uga xumaatay go'aanka uu qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya haatanna waxaa dib u soo laabtay cilaaqaadkii ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta dhanka kalena Artemis ayaa shacab fara badan ka soo afduubatay gobolka Shabeellada Dhexe howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Artemis ayaa gobolka Shabeellada Dhexe ka soo qafaashay dad rayid ah kadib howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo daba socday weerarada maleeshiyaadka Al-Shabaab oo raantii bishaan ay ka fuliyeen deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ciidankan ayaa lagu soo waramayaa in ku dhawaad 10 qofood oo shacab ah ay gacanta ku soo dhigeen iyagoona ay ku eedeynayaan inay la shaqeynayeen kooxda Al-Shabaab oo weeraro badan u geysato kooxdaasi ila wareedyo ammaanka ah oo ku sugan gobolka ayaa waxa ay sheegeen in dad shacab ah aan waxba galabsan loo soo dhoofiyay magaalada tani caasimadda ee Muqdisho taasina waxa ka sabab ah ciidamada Artemis dhibaatooyin kala duwan inay ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe lama oga sida ciidamada Artemis ay yeelayaan dadka maadaama la keenay xaruntooda dhexe oo ku taala xerada Xalane ee magaalada Muqdisho sidoo kale dadka deegaanka iyo qaar kamid ah ehelada ragga la soo qabtay ayaa fariin u diray dowladda Soomaaliya waxayna ka codsadeen in la soo daayo wiilashooda iyagoona iska fogeynaya eedeynta loo jeedinayo Artemis ayaa waxaa jira dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan inkastoo dadka shacabku ay xadgudubyo waaweyn ay ku sameynayaan ciidamada midowga Afrika ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ma jira ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay Artemis oo la xiriira howlgalka iyo dadka lagu soo qabtay halkaasi
weerarkii ceelbaraf ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee lagu qaado fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta tan iyo markii howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ATMIS oo loo bedelay ciidamadii hore ee nabad ilaalinta AMISOM 1 Abriil. ururka Al-Shabaab oo muddo 10 sano ka badan dagaal culus kula jira dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay mas'uuliyadda iyadoona ay sheegtay inay la wareegtay gacan ku haynta xerada ayna ku dileen 173 askari. ATMIS oo ka kooban ciidamo ka kala socda Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa loo xil saaray inay gacan ka geystaan sidii ciidamada Soomaaliya u qaadi lahaayeen mas'uuliyadda koowaad ee amniga dalkooda ee colaadii hareysay tan iyo 1991 wixii ka dambeeyay, waxaana haatan ciidamada ATMIS la sugayaa go'aamada kale ay qaadan doonaan. Sacuudiga ayaa dalkiisa ka mamnuucay muwaadiniinta Soomaalida ah iyadoo laga jawaabayo kiisaska sii kordhaya ee COVID-19 ayaa Sacuudi Carabiya waxa uu dalkooda ka mamnuucay in ay u soo safraan muwaadiniinta 16 wadan oo ku yaala Aasiya, Afrika, Koonfurta Ameerika. sida lagu sheegay wargeyska The Gulf News. wadamada liiska lagu daray ayaa kala ah India, Lebanon, Syria, Turkiga, Iran, Afghanistan, Yemen, Soomaaliya, Ethiopia, Democratic Republic of Congo, Libya, Indonesia, Vietnam, Armenia, Belarus iyo sidoo kale Venezuela. wasaaradda caafimaadka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday 414 kiis oo cusub oo COVID-19 ah iyadoo tirooyinkaasi toddobaadlaha ah ay noqdeen kuwa si laba jibaarma. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaana sheegtay in aysan marnaba dadka wadamadaasi aan soo xusnay ka soo jeeda ayna tagi karin wadanka Sacuudi Carabiya. muwaadiniinta Sacuudiga waxaa loo ogol yahay in ay u safraan oo kaliya haddii ay qaataan dhammaanba 3 talaal. tallaabadani ayaa u muuqata go'aan jahawareer ah xilli muslimiin badan oo ku nool dunida ay isku diyaarinayaan gudashada waajibaadka xajka. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay wadaa tacdiyo kala duwan iyo si weyn inay uga hor istaagayso dadka muslimiinta ah ee u tagaya xajka wadankeeda maadaama xajka uu ku yaala wadanka Sacuudi Carabiya. waxaa qof walba ay si weyn u hadlaysaa go'aankan waxa haatan ku soo aadiyay iyo sida ay wax ka yeeli doonaan dadka wadamadaasi ka soo jeeda. muwaadiniin badan ayaa ku sugan wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya oo Soomaali ah inkastoo haatan si weyn loo wada hadalhayo go'aanka ay soo saartay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya. dhanka kalena maxkamadda racfaanka Hargeysa ayaa xukun ku riday Cabdimaalig Muuse Coldoon. maxkamadda racfaanka Hargeysa ayaa 2 sano xariga iyo 3 milyan oo Somaliland shilin ah ku xukuntay Cabdimaalig Muuse Coldoon. maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa Coldoon waxa ay ku xukuntay xabsi iyadoona ay sheegtay in uu xadgudubyo fara badan uu sameeyay iyadoo tacadiyo badan loo geysanaya Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. Cabdimaalig Muuse ayaa waxa uu yahay shakhsi maamulka uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi tacadiyo fara badan u geystay iyadoo qof walba ay hadal haysa tacadiyada kala duwan ee mararka qaarkood suxufiyiinta ku sugan deegaanada Somaliland loo geysanayo. maamulka Muuse Biixi Cabdi ayaa ku aanbaxay dhibaateynta saxafiyiinta iyo sidoo kale xadgudubyada kala duwan ee mararka qaarkood loo geysanaya saxafiyiinta ka howlgala deegaanada maamulkaasi. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ehelada Cabdimaalig Muuse Coldoon ay si weyn kaga xun yihiin go'aanka ay soo saareen maxkamadda sare ee maamulka Somaliland. horey ayay dhowr jeer xabsi ugu xukumeen Cabdimaalig, laakiin Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu yahay shakhsi ku aanbaxay tacadiyada iyo dhibaateynta saxafiyiinta ka howlgala deegaanada maamulkaasi Somaliland. deegaanada maamulka Somaliland ayaa waqti kasta lagu dhibaateeyaa saxafiyiinta qaybahooda kala duwan haddii ay runta ay ka sheegaan waxa ka jira deegaanadaasi. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waa naga intaa. haddaba daawaday haddii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena leega, sheerka iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.